dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa doonaya inay wada gaaraan heshiis ku taxalluq ah isdhaafsiga badeecadaha iyo waliba ganacsiga tooska ah ee markaasi labada dal isaga gudbaya. qorshahan ayaa maalmahanba lagu naaqashay kulamo ay magaalada Berbera iyo waliba caasimadda Hargeysa ay ku lahaayeen mas'uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliland. waxa qorshuhu yahay in la abuuro jawi heshiis ah in ay markaasi badeecadaha Soomaaliland iyo Itoobiya isaga gudbaan labada dal, iyadoo oo qorshuhu yahay in markaasi heshiiskaasi uu ku taxalluqo laba qaybood oo kala ah heshiis transit ah iyo waliba mid labada dal isku dhaafsanayaan wax soo saarkooda. sidaasna waxaa sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga, dalxiiska iyo warshadaha Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saasin oo maalintii shalay ka hadlayay munaasabadda lagu daafuray carwada sagaalaad ee ganacsiga Soomaaliland oo laga furay magaalada Burco. wasiirka ayaa sheegay in tallaabadani ay wax weyn ka tari doonto nidaamka ganacsiga ee labada dal, isla markaana ay faa'iido u soo hoynayso ganacsatada Soomaaliland. wuxuuse wasiirku ku canaantay ganacsatada Soomaaliland in aanay wax soo saar maxalli ah ilaa imika samaynin. shalay iyo daraad waxaan joognay Berbera, waxaan ku mashquulahayn oo gruubkii kale oo Sacad ka mid yahay kaga imanay maadaama carwadani ay isku soo duldhaceen. maanta wuu socdaa moogtahay shirkii waxaan ugu diyaar garoobaynay heshiiska aan la galayna dowladda Itoobiya. waan haynaa waxyaabihii moogtahay horumarka keenayay, waxaan weerkii waan haynaa, oo dekadii waan haynaa, oo siduu wasiirku u sheegayay free zone-kii degdeg buu bilaabaya. sharciga unbaa marka hore xidhayay, sharcigiina u dhammaaday. waxaan haynaa boorkii baan haynaa, waxyaabo badan baan haynaa, laakiinse waxaasoo ku dhani macnama samaynayo ilaa maskaxdii lagaga faa'iidaysanayay aan la imanno. mid kalena waan idinku darayaa, Itoobiya waxaan iminka la wadnaa heshiis baaca mushtari iyo ku moogtahay transitba. heshiisyadu mararka qaarkood waxba kuma talaan, sida iminka aan u baaca mushtariino si kale wax u gelinaa. sidaas siduu Jamaal sheegay ma sii soconayso, way dhammaanaysaa. marka haddaba waxa weeyaan ummad kastiba waxay iyadu soo saarta iibisaa, waxay iyadu soo saarto iyo iib geysaa. waxaan iminka iibinaa waxa weeyaan wax dadka leeyahay. hadda halkan waxaad ii sheegayseen biyihii iyo dhulkii iyo wixii ku dhayay Burcaleeda, dee waddanka supply gareeya wax soo saara yana inaga noqon faaruun had iyo jeer. waxa la soo saaro khudradii yaayadii baan ka soo iibsanaa Itoobiya, macquul maaha waxaas. marka waxaan idinkula talin lahaa in moogtahay dadaal badan baa laynooga baahan yahay. maalmahani markaan meesha joognay waxaan ka hadlaynay maxaan isweydaarsan karnaa. dee maxaan isweydaarsanaa? ma gabayga iyo ruwaayaddaan isweydaarsanaa? ilaa wax kale inna kuma hayne. dadki haddii wixii waddankeenna ka baxayey aanan soo saaraynin oo wax kastaba dibadda aan ka keenayno, sideen u sii socon karnaa? muraad dibadda waad joogi jirtaan u malaynaya. dadkii tegey moogtahay dibadaad ka mid ahayd baan u malaynaya. dee dadkii waagii tegey way dhammaanayaan. waxay iminka dibadihii joogaay waa carruur iyo dhallinyar bay noqonayaan. waxaan ku nool nahay waa ribi taliska waxay soo diraan iyagu. haddii aan sidan u sii soconno oon isku hadlayno ma soconayso. kuwa yaryari ma yaqaanaan ribi talis la diro. waddankeenna mashiinka ku socday waxa weeye waxa ay soo diraan. waxa ay soo diraan ma sii soconayo. waa inaan tashanno, waa inaan wax soo saar yeelano. waddan 95% soo dejiyo wax 5% wax ka iibgay waa beeyada yar. dhankiisa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa isaguna sheegay in marka la daafuro mashruuca Berbera Corridor isla markaana la dhameystiro dekadda Berbera ay labadaasi mashruuc noqon doonaan kuwo furo u noqda in Soomaaliland ay kasbato ganacsi caalami ah oo markaasi lagu soo hirto. taasina ay keenayso in laga gudbo hadda jawiga lagu ganacsado ee ay ganacsatada Soomaaliland badeecadaha ay ka keenaan dibadda dalka uun ka iibiyaan dalka dariska loo gudbiyaan. Jamaal Caydiid Ibraahim ayaa isaguna si la mid ah wasiirka anaan u jeediyey ganacsatada Soomaaliland. waxaa loo gudbi doonaa wakhtiga soo socda oo isbedelaya qaabkii aynu ganacsan jirnay. haddii aynu nahay ganacsatada waxaa bilaabmaya
oo imika xidhmi doona bisha afraad ee sanadkan in dekadii berbera ee cusbeed ay dhammaystiranto dabeedna berbera corridor baa bilaabaysa dabeedna waxaa iman doonta in waddan waliba waddanka kale ka iibiyo waxa uu soo saaro wixii aynu re-exportka ku samayn jirnay ee intaynu dibad ka keenno dibad u dhoofin jirnay buu ka iibinayaa marka inaynu hadda sii diyaar garowno oo runtii waktiguba inugu yar yahay haddii 4 bilood ka bacdi berbera corridor bilaabanto baaca mushtarkii caalamiga ahaba inoo furmaya taana intaasaan ku boorinaya